ninkan awoodda u lahaa inuu hal feer ku jebiyo albaab bir ah waxaa la oran jiray Dani. wuxuu lagu cadaan ku socday waddada dadka ag marayana waxay ku eegayeen quusi iyo yasi. cidina ma ogeyn inuu dhab ahaantii yahay mulkiilaha dhabta ah ee shirkad weyn oo saamigeedu suuqa yaale. markii Dani galay dhismaha shirkadda, gabadhii soo dhaweynta ayaa si liidasho leh u eegtay. Dani wuxuu si toos ah ugu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo guddoomiyaha shirkadda. gabadhii waxay ku amartay inuu dhinac iska sugo. wax yar kadib laba waardiye ayaa yimid si ay bannaanka ugu saaraan. Isaame waxaan ahay YouTuber, laakiin sabasgarab ima tirahdeen walaalayaal ilaahay darsi dhaha, okay? magacayguna waa Cabdiraxmaan, laakiin waxa igu qoran Soomaali ay watiri. Assalaamu calaykum to 3. Assalaamu calaykum. xaqiiqdu waxay ahayd in Dani la waayay muddo 15 sano ah. 15 sano ka hor waalidkii waxay ku dhinteen shil diyaaradeed, isaga oo keliya ayaana ka badbaaday. si mucjiso leh koox suufiyiin ah ayaa badbaadisay. intaas kadib wuxuu bartay fanka dagaalka ee heer sare ah. hadda wuxuu ku soo laabtay shirkaddii aabbihii, balse cidina ma aqoonsanayn. Dani si degdeg ah ayuu ugu dhaqaaqay wiishka, laakiin waardiyaashii ayaa mar kale hor istaagay. markan dib uma noqon. wuxuu si fudud dhinac uga riixay labadii waardiye maadaama uusan doonayn inuu waxyeeleeyo qofna ee uu rabay oo keliya inuu gudaha galo. wuxuu xoog ku kala furay albaabadii wiishka, wuxuuna si toos ah ugu baxay xafiisyada dabaqa sare. halkaas ayuu kula kulmay maareeyaha shirkadda, balse midkoodna kan kale ma aqoonsanayn. isla wakhtigaas haweeney ayaa qolka ka soo baxday. Dani markiiba wuu gartay iyada, wuxuuna damcay inuu la hadlo. hase yeeshee maamulaha guud ayaa telefoonka qaatay isagoo amray waardiyaasha inay qabtaan Dani. sidaas darteed mar kale ayaa bannaanka looga saaray. kadib Dani wuxuu aaday guriga Joy. wuxuu rajaynayay inuu si degan ula hadlo, balse ma uusan ogeyn in Joy wax ku dartay shaahi ay siisay. markii uu cabay, Dani wuxuu dareemay madax wareer iyo tabardarro. wuxuu ku dhacay dhulka isagoo miyir beelay. markii uu dib u soo toosay, wuxuu ogaaday inuu ku xiran yahay isbitaal lagu hayo dadka dhimirka ka xanuunsan.